sidaynu wada ognahay guddida dhexdhexaadinta Somaliland qodobadii saddexda ahaa ay soo saartay in aan halkii laga filayay inay hirgalaan arrin lama filaanihi muuse ka soo baxday. anigu waxaan leeyahay bahal caydhin ma daayo ninna caadi ma baajo. bahal caydhin ma daayo ninna caadi ma baajo. sidaynu uga barannay muuse wuu soo celiyey dalkuna dalka Somaliland waa dal weyn oo ballaaran. malaa muuse wuxuu haystaa guutadii afraad inuu weli xukumayo inuu dal xukumayo uma haysto. arrintani ma aha arrin maanta timide sida islaanta dabadu qaawaneydee lahayd waa macmiil ayuunbaa layna leeyahay waa macmiil. waxba dadku way arkayaan, guddidii dhexdhexaadintu way arkaysaa, tii caalamku way arkaysaa, shicibka reer Somaliland way arkayaan in wacadka baxa muuse uu ka dhigtay macmiisha sida islaanta uu ina leeyahay waa macmiil. waxaanu ka codsanaynaa waxaanu aqbalayna maaha shicibkuna inaanay aqbalin. dhanka kale mujaahid cabdi lameereyso oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay gacan ka hadal dhawaan la sheegay inuu madaxtooyada Somaliland ku dhex maray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday Injineer Faysal Cali Waraabe iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxa barnu islaan dagaaladu meelaha shay ka dhiciyay madaxtooyada gudaheedii ayaaba dagaalkii laga bilaabayo weydinkii xalay maqlayay Faysal Cali